السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتيني كوباد أما بعشركين أوري برشادة أدوبة بريمير برو waxaan ku baranay xirfadda video editing software runtii lagu isticmaal badan yahay waqti xaadirkan haddii aad baratidna wax baan kuu tari doona insha allah. marka sidoo kalena softwareka meesha aad kala soo degaysid waxaan soo dhignay qaybta telegramka haddaad tagtid linki ayaa yaala aad software kala soo degi kartid, marka xaggaas kala soo deg insha allah. marka horeyso aad soo furtid Premiere Pro-ga oo inta ku gaara waa qaybta meesha oo horeysay. meesha waxaa arkaysa inay ku qoran tahay new project iyo open project. open project waa project hore aa waday oo kale, sidoo kale haddii project aa waday markaasna aad barnaamij aad save garaysa barnaamijkan aad ka baxday laakiin aad dhamayn waxaad samayn kartaa open project ayuu computerku toos kugu furaya. marka meeshii aad ku save garaysatay ayuu ku geenayaa. haddii laakiin aad rabtid mid cusub inaad samaysidna waa meeshaan ku qoran tahay new project ayaad ku dhufanaysaa. marka anaga hadda waa barnaamijka haddaan furnay soo dira waxaan u baahanaa marka inaan ku dhufano new project si project cusub nagu sameeyo. so new project aan ku dhufanayaa. marka new project aad ku dhufatid ayuu wuxuu ku leeyahay magac u baxso projectigaaga. haddaan u bixino casharka Adobe Premiere Pro, kadibna inter baad dhigi kartaa ama create xagaasaad ku dhufan kartaa, labada waa isku midkii. markaa ku dhufatid ayuu toos wuxuu kuu geenayaa toos buu wuxuu kuu geenayaa marka qaybtii hore ama wejiga hore Adobe Premiere Pro-ga. marka saa arki kartid ba waxaa noo soo baxay 4 daaqadood, daaqad intaa iyo daaqadan iyo daaqadan iyo daaqadan. marka waa meesha inta badan aan ku shaqeyn doono. meeshaan waxaa loo yaqaanaa meeshan hadda ay ku qoran tahay important media waa meesha aad ka soo gelinaysid video tusaale kale ama codka, wax walba aad soo gelinaysid barnaamijkan inta ayaad ka soo gelinaysaa. meeshaan kalena oo ku xigto geeskan waxaa loo yaqaanaa timeline-kan wuxuu sameeyaa barnaamij walba marka aad soo gelisid oo arabtid inaad jarjartid amaba isku habaysid, cod dul saartid, transition aad samaysid, color ku dartid, meesha laga hagaajiyo waa inta timeline-ka. waa meesha shaqada badanaa ka socoto. meeshaan kale ayadana oo source la dhaho waxay samaysaa barnaamij markaa soo gelisid ayaa barnaamijkii inta keenin ayaa inta lagu eegaa. haddii barnaamijka aad rabtid inaad xoogaa kasoo qaadatid, tusaale oo kale video ayaad rabtaa dheer inaad qayb kasoo qaadatid, intaa keenaysaa waad ku kala reebaysaa. amaba video iyo cod baa isla socda, waxaad rabtaa inaad kala reebtid codka iyo video, inta ayaad keenaysaa oo ku kala reebaysaa kuna fiirinaysaa marka hore. marka barnaamijka markaa soo gelisid intuu ka bilaabanayaa intaad ku eegaysaa oo barnaamijkeed ku fiirinaysaa, kadib timeline-ka soo wareejinaysaa. timeline-ka markaa soo wareejisa ayaad hagaajinaysaa barnaamijkii oo markaasaad saxaysaa. markaad saxdid intana waa programka wuxuu sameeyaa barnaamijka mar walba aad saxaysid intaad kala soconaysaa marka, oo qaybtan daaqadan ayaad kala soconaysaa. daaqadan kalena ayada waa meesha aad ku hagaajinaysid, tanna waa meesha aad ka soo gelinaysid important media, kana source-gaana asna waa meesha marka aad soo gelisid barnaamijka ayaad ku fiirinaysaa oo markaas barnaamijka ayaad ku kala reebaysaa. hadduu cod adaad tusaale oo kale cod iyo barnaamij la socdaan waxaad samaynaysaa in aad ku kala reebtid codka iyo barnaamijka. ama barnaamij dheer ayaad soo gelisay, waxaa rabtaa inaad qayb ka soo qaadatid oo aad ku kala reebaysaa. insha allah si toos oo practice ayaan u arki doonaa. meesha haddaan ku dhufano filekan markaan ku dhufano meeshaan waxaa ku qoran new. haddaad rabtid mid cusub inaad samaysid open project, haddaad rabtid project hore inuu socday meeshaan kale ay ku qoran tahay open recent, projectyada u dambeeyey close project. haddaad rabtid inaad xirtid save iyo save as. sidoo kale meeshaan hoose waxaad ku arki kartaa important. haddaad rabtid inaad soo gelisid
meeshaan awal waa sheegnay in xaggaas important media laga soo gelin karo double click inta aan siino sidoo kale inta waa kasoo gelin karnaa import ay ku qoran tahay oo aad important haddana ku dhufano hadda computerku toos noo geenayaa exportna waxa waaye exportku wuxuu sameeyaa waa markii aan barnaamijka dhammayno waa meeshii aan maaragtay barnaamijka aan dhammaadkiisa marka aad shayga dhamaysid export baa leedahay media leedahay kadibna barnaamijka ayaad soo dejisanaysaa marka wejiga koobaad ee Adobe Premiere Pro waa kan intaan waaye waan inta ud badan aan ku shaqeyn doono sidoo kale toolska inta yaalana waa toolska aan isticmaali doono timeline-kan oo qaybtan ah isaga xataa insha Allah mar baan cashar dhan sameyn doona toolashan iyo sida loo isticmaalo marka video mar inuu nagu dheeraado insha Allah qaybteena koobaad intaan ayaa ku joojinayna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.